madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa intii aqalka cad uu kula kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku adkaystay rabitaankiisa in la sii wado wadahadallada lala yeelanayo Iran si loo gaaro heshiis. Dhanka kale Tehran waxay sheegtay in la gaari karo heshiis kaas oo suurtagal ka dhigi kara heshiis cadaalad ah oo isku dheelitiran. Kadib kulan qaatay 3 saacadood oo ka dhacay aqalka cad, Trump ayaa bartiisa Truth Social ku soo qoray isaga iyo Netanyahu inaysan gaarin wax heshiis ah kaasoo ah kama dambays marka laga reebo inay isku raaceen sii wadista wadaxaajoojyada lala yeelanayo Iran. In badan oo ka mid ah khubaradu waxay u arkaan tallaabadan inay tahay khiyaano warbaahineed ama dhawaq lagu khiyaanayo Tehran. Trump wuxuu sheegay in Netanyahu uu cadeeyay in heshiis lala gaaro Iran uu yahay doorashada koowaad ee Mareykanka uu doorbidayo haddii ay suurtagal noqoto. Waxa uu intaas ku daray, waxaan rajaynayaa in Iiraaniyiintu ay marka noqdaan kuwa ka macquulsan. Wuxuu sidoo kale xusay in wareeggii hore Iiraaniyiintu ay doorteen inaysan saxiixin heshiis, taasi oo sidoo kale hadalka u dhigay inay ku noqotay khasaare xooggan. Waxa uu la jeeday weerarkii Mareykanka ee lagu weeraray 3 goobood oo nukliyeerka intii uu socday dagaalkii 12 cisho kaasoo Israa'iil ay bilowday bishii Juun. Waxaana la xasuustaa khasaare xooggan Iiraaniyiintu inuu ka soo gaaray walow cashiro la milaabaan iyaguna ay u dhigeen Israa'iiliyiintu. Si kastaba ha ahaatee, Trump wuxuu carabka ku adkeeyay in xiriir dhow kula dhaxeeyo Israa'iil kaasoo weli uu sheegay inuu sii soconayo. War kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Netanyahu Trump uu kala hadlay wadaxaajoojyada Iran iyo xaaladda marinka Gaza. Sidoo kale waxa uu sheegay Netanyahu inuu dul istaagay baahiyaha amniga Israa'iil marka laga hadlayo wadahadallada lala leeyahay Iran. Labada hogaamiye ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen sii wadista wadahadallada iyo joogtaynta xiriirka dhow ee ka dhaxeeya labada dal. Si ka duwan caadada, kulankan waa kii toddobaad ee yeesheen labada mas'uul tan iyo inta xafiiska uu ku soo laabtay madaxweyne Trump, kaasoo kaga duwanaa inaan warbaahinta la hor imaan. Waxa la filayay Netanyahu uu ku cadaadinayo Trump in wadaxaajoojyada lala leeyahay Iran lagu soo daro barnaamijyo ka baxsan nukliyeerka, gaar ahaan in lagu soo rogo xayiraadyo ku saabsan gantaaladooda riddada dheer iyo weliba taageeridooda kooxaha gobolka. Wuxuu ku hanjabay weerar inuu ku qaadi doono Iran haddii aysan la gaarin heshiis, halka Tehraaniyiintu ay ku goodiyeen in jawaab adag ay ka bixi doonaan haddii la soo weeraro. Tani waxay sii kordhisay cabsida laga qabo dagaal ballaaran oo ka qarxa gobolka. Waraysi uu bixiyay Trump Talaadadii wuxuu ku sheegay in Iran ay doonayso wadahadal ama ugu yaraan heshiis, balse haddii ay qaadan waayaan tallaabo adag uu ka qaadi doono. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa Arbacadii sheegay in dalkiisa diyaar u yahay nooc kasta oo hubina oo lagu xaqiijinayo barnaamijkooda hubka waxgumaada ee nukliyeerka, kaasoo uu sheegay in saldhig uu yahay nabadda ama uu yahay mid nabadeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Abbas Araghchi ayaa isaguna sheegay in la gaari karo heshiis ku saabsan barnaamijka nukliyeerka haddii uu noqdo mid cadaaladeed oo isu dheelitiran, balse wuxuu carabka ku adkeeyay in Iran ay difaaci doonto madaxbannaanideeda qiimo kastaba ha ku kacday, isagoo yidhi xuquuqdeenna iyo sharaftayadu maaha kuwa laga gorgortami karo. Kadib wareeggii koowaad ee wadahadallada 6 February kaasoo ka dhacay dalka Cumaan, Mareykanka iyo Iran, labaduba waxay sheegeen inay doonayaan sii wadidda wadaxaajoojyada iyo wadahadalka. Iran waxay ku adkaysatay in wadahadalladu ay ku koobnaan doonaan arrinta hubka waxgumaada ee nukliyeerka, isla markaana aan lagu soo dari doonin arrimaha gantaalada ama xitaa xulafadeeda. Trump oo sidoo kale Fox Business la hadlayay waxau yidhi in heshiis wanaagsan uu la macno yahay. Ma jiro hub nukliyeera, mana jiraan gantaalo, balse ma uusan xusin wax faahfaahin oo dheeraad ah. Waxa uu sidoo kale u sheegay bogga Axios inuu ka fiirsanayo dirista markab kale oo qaada diyaarado dagaal, taasoo qayb ka ah xoojinta joogitaanka ciidamada Mareykanka goobaha u dhow Iran.